horaantii sanadkan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ugu baaqay wadamada Yurub inay dib u qaataan dadkii ka yimid wadamadaas ee ka tirsanaa ururka Daesh ama ururada kale xag jirka ah ee ka dagaalamaya dalka Syria kadib markii inta badan dhulkii ay ka talinayeen ee wadamada Iraq iyo Syria ay kaga adkaadeen isbahaysiyada ay kala hogaamiyaan Mareykanka iyo Ruushka. waxaa lagu qiyaasaa ilaa 800 oo qof inay ka yimaadeen wadamada Yurub ayna ku beereen ururka Daesh. guuldarrada uu la kulmay ururka Daesh iyo dagaalada weli ka sii socda Syria waxay ku qasbeen boqolaal ka mid ah dadkii hore ugu biiray Daesh inay qaxaan isla markaana ay magansadaan xeryo qaxooti oo ku yaala deegaanada ku teedsan xuduudda u dhaxaysa saddexda wadan ee Syria, Turkiga iyo Iraq. haddaba qaar ka mid ah dadka ka yimid Yurub ee ku biiray Daesh iyo ururada kale xag jirka ah waxaa ku jiray tobannaan Soomaali ah oo intooda badan ay ka yimaadeen wadamada Yurub sida Sweden, Britain, Jarmalka iyo Denmark. dadkaasi hore ugu biiray Daesh ee haatan qaxootiga noqday waxay intooda badan soo gaadheen xerada qaxootiga ee lagu magacaabo Al-Xuul oo ku taala deegaan ay ka taliyaan Kurdiyiinta Syria kuna taala deegaan u dhow xadka ay wadaagaan wadamada Syria iyo Turkiga. barnaamijka galka baarista oo wareystay ehelada dadkaasi waxa uu ogaaday in inta badan Soomaalida soo gaadhay xeradaasi qaxootiga ah ay yihiin dumar iyo carruur. galka baaristu waxa uu helay liis ay qoreen waalidiinta carruurtoodu xeradaasi ku jirto. liiskaasi oo ay ku qoran yihiin magacyada 57 qof kuwaasi oo 23 ka mid ah ay yihiin gabdho 34na ay yihiin carruurtii ay dhaleen. carruurtaasi oo qaarkood aabbayaashooda ay ku dhinteen dagaalada ka socda Syria. waalidiinta carruurtaasi oo la hadlay galka baarista waxay sheegeen in carruurtoodu ay xilligan dhiban yihiin ayna doonayaan in Soomaaliya loo daadgureeyo. waxay sheegeen in wadamada ay ka soo jeedaan oo ay ka mid yihiin Britain, Jarmalka, Denmark iyo Sweden aysan doonayn inay soo qaadaan ama siyaasad ahaan xisbiyada ka taliya ay ka maagayaan inay go'aankaasi qaataan. ugu yaraan mid ka mid a gabdhaha halkaas ku jira oo lagu magacaabo Nasra Cabdullaahi Abuukar waxaa dawladda Britain ay kala noqotay dhalashadeedii. badankooda gabdhahaasi waxay ku dhasheen dibadda laakiin wadamadooda waa ay ka warwareegayaan ilaa haatan inay soo daadgureeyaan. waxayna waalidiintoodu haatan sheegeen inay doonayaan in la geeyo Soomaaliya. aynu ku horeyno Kaaha Guura Xasan oo ku nool magaalada London. gabadheeda Nasra Cabdullaahi Abuukar waxay Syria tagtay 3 bishii Juun sanadkii 2014 xilligaasi oo ay ahayd 18 sano jir. waxay hooyadeed ku doodaysaa in gabadheeda laga duufsaday dhinaca internetka. 10 maalmood kadib markii ay ka dhooftay magaalada London ayay ka soo wacday gabadheedu dibadda waxayna u sheegtay inay u baxday inay caawiso dadka Syria. sanad ma dhameen markay dhehaysa arkadaad inaa waxaan sameeyay qalad inaan soo noqdaan raba. waa gartay marka dhulka ay joogtay oo ka soo waxaysi ma dhulka Daesh joogto ahaa mise dhulka kooxaha kale joogaan. kala gabadheedu qof oo free oo maxay ahayd oo meel free joogto uma ekeen oo waxay ahayd qof oo maxay la ilaalinayo telefonka markay dirsanayso cabsanayso sidii ay rabto oo ila hadli karin qof gacanta lagu haayo oo haba yaraatee wax xurriyad aan haysan saasay ila ekeed. waalid ahaan seed u aragtaa inay gabadhaadu ku biirto koox argagixisa? walaa aniga waalid ahaan waxa u arkaa wax xun inay tahay inay ku biirto raalina kama ihi mana ka noqon doono marka ayadana kulay ma jecleen waa maadaama teen age iska gabadheeda waa la guruum gareeyay qof waxay ahayd waxbarasho haysato waalidkeed la nool waxba aan ka haleesnayn marka xataa meeshan ka tagaysay ma u maleynayo gabadheeda inay waxa ahayd inay haysato. hadda maxaa doonaysaa aad waalid ahaan? aniga iyo waalidiinta ila midka ah waxa meesha joogana waa gabdhahaasna waxay ku dhadhow yihiin ilaa 50 ilaa carruurtay dhaleen oo ayagana 50 iyo ka badan ah. marka wax dawladeena sharafta leh oo ugu horeeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre, wasiirka arrimaha dibadda, shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay noo kacaan carruurtaas meesha ku dhibaataysan inay naga caawiyaan sidii wadankooda ay ugu soo noqon lahaayeen. ilaa qof kasta wadan ay leedahay dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay carruurtaas wadankooda noogu soo celiyaan ilaa qof kasta meesha ay u dhalataa loo celiyaan. galka baaristu waxa kale oo uu la hadlay mid ka mid a waalidiinta ay carruurtoodu aadeen dalka Syria oo ku nool dalka Jarmalka. aabbahani waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin sababo dhinaca amniga ah. qoyskiisa waxaa ka baxay oo dalka Syria tegay si ay ugu biiraan ururka Daesh 4 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin carruur uu isagu dhalay oo isugu jira 2 gabdhood iyo wiil.
waxaa kaloo qoyskiisa ka tegay xaaska wiilkiisa oo weliba uur lahayd xilliga ay safraysay. waxa uu aaminsan yahay in carruurtiisa oo dhammaantood ku dhashay dalka Jarmalka ay gacanta ku dhigeen dadka wax tashkiiliya, kuwaasi oo sabab u ahaa inay u safraan dalka Syria bishii Sebtembar 2014. wallahi Syria magaalada ay tageen oo toos amaanan helin cid ii sheegtana waan waaye marmar bay ma arkilayeen waa nabad qabnaa. hase yeeshee muxuu ahaa 2015 bishii 3 oo Maars ahayd ayaa wiilkii la dilay oo qolooyin baa ma aragtay meel ka toogtaa liiraa soo socda. wiilkii weynaa Allahu naxariisto. waa gartay ma dagaal uu ku dhintay? ma dagaalku ma uuna dhiman, waxaa la yiri asigoo socda ayaa toogasho lagu dilay oo niman Kurdiyiin toogasho ku dilay. intuuna dhimanna gabadhii baa dhashay, wiil bay dhashay. wiilkaasna ilaa hadda waa jooga alxamdulilah, shukran rabbil caalamiin. ayadana waa joogtaa. gabdhihiina ma aragtay niman buu ku darayba, gabadhii yareed iyo muxuu ahaa gabadhii kalaba. marka maxay doonayaan hadda saddexdaa gabdhood iyo carruurtooda? wallahi waxay doonayaan hadda meel waxay joogaan oo ma aragtay kaam ah. kaamkaasna ma aragtay nolol xumaa ka jirta, daawo xumaa ka jirta. dhib waa ka soo noogeen haddii alla xabadii ka soo bixiyey iyo qaraxii iyo duqeyntii alla hadduu ka soo saaro alla ka soo badbaadiyo meeshaas waa la keenay. marka waxaa weeye noloshoodii waxay rabaan inay ma aragtay dib u dhistaan, nolol ma aragtay xorriyad ah inay helaan. marka anigana waxaan rabnaa ilmihii inay dhulkaas oo ku dhawaataysan yihiin noogala soo wado. Yurubna muxuu ahaa waa diideen oo inay soo qaadaan, waxay yidhaahdeen soo qaadi mayno. Maraykankana waxa yiri soo qaata way ka diideen. marka ayaga haddaan u sheegno niri ma aragtay ilmihii halkaasi joogaan waxay yidhaahdeen war waayahay waxbaan ka qabanayna ilaa hadda waxba lama qaban. ayagana waxay rabaan inay kolleyba ma aragtay noloshoodii iyo aniga xataa ku farxi lahaa in waddankoodii loo soo celiyo ma aragtay dhulkoodii la keeno. marka adigu ma waxaad doonaysaa in Jarmalka la keeno mise in Soomaaliya la geeyo? wallahi labada meeshay ku badbaadayaan, laakiin aniga waxaan rabaa in Soomaaliya. sababta tahay waxaa weeye Soomaaliya ayaa hadda ma aragtay ka fudud in meesha laga bixiyo. sidii ma aragtay Soomaalida kale loogu soo daadgurayay xabisidii ku jiray adduunka gacaladiisa oo loogu gurmado dowladdii hadda maanta joogtay ay u gurmatay. ayaan rabi lahaa bal dhibkaas in laga soo saaro oo ma aragtay ilmo yaryar bay ahaayeen oo maskaxdana laga xaday oo ma aragtay ilmo yarna haysta meeshan ku dhibaataysan. xasan yaxye maxamed waxa uu ahaa 17 sano jir markii uu u safray dalka Syria isagoo ka tegay dalka Denmark. xilliga uu tegay dalka Syria bishii Juulaay 2013 weli laguma dhawaaqin khaliifada ISIS. aabba yaxye maxamed faarax ayaa iiga warramay sida ay wax u dhaceen. waad garan kartaan qurbaha markuu wiilku ama carruurtaadu ay waxbarasho fiican ay ku jiraan, masaajidkana ay ku jiraan, walwal weyn ma qabin walwal weyn oo isma aana lahayn. masaajidkiibaa khawaariid kaaga daba tagaysaa, waayo annana waa shaqaynayay, galab baan shaqayn jiray, hooyadiina subaxday shaqayn jirtay, wiilkiina sanadkii ugu dambeeyey dugsiga sare ayuu dhiganayay, 17 jirna wuu ahaa. hase ahaatee masaajidkiyo ayuu tegi jiray inta badan, laakiin ma islahayn masaajidkii ayaa dhibaatadaas ka dhacaysa. marna maskaxdeeda kuma soo dhicin. waxaas lahaa ilaahay wiilkii wuu ku toosiyey, dugsigii sare wuu wataa, beedki ilaahayna wuu ku jiraa. marka markuu baxay ma Daacish buu ku biiray, ma Nusra ku biiray, kuwee buu u tagay? waagaasi wuxuu tagay mardan baan ka war helnay illi meel yiraahdo ayuu tagay waagaas. kabacdina war waxaan ka helnay Xalab. waa gartay. marka askari buu ahaa? walaalow markii hore waxa ahaayeen dadka ay ku baxeen mucaawin ay ku baxeen. inay voluntary mucaawin bay ku baxeen, dhalinyaro iyagoo ah arday education ah. dee xagga marka ay tageen waxaa maqaalo nagu ah in awoodii oo dhan ba laga qaaday, ay ku khasbanaadeen maadaama ay faraha u galeen dad kale wixii lagu amray inay sameeyaan. waa gartay. yaa amarka marka dul saaraya? kolley waxaa maqaalo waa anaga goobjoogka ma aan ahayn. kolley dadka ay u tageen baa amarka dul saaraya kolley dadkaas ugu weeye. waa gartay. marka waxaad ii sheegtay wiilkaaga inuu dhintay. goormuu dhintay? walaale wiilkayga wuu dhintay, wuxuuna dhintay 2019 Janaayo hadda ayuu dhintay asagoo mooto saaran baa waxaa heshay tron diyaaradda la hago ayaa tronis asagoo mooto saaran magaalada Baghus ayuuna joogay, agagaarkeedu taagnaa tuulada banaankeeda. sawir maqaala aan ku maqlay.
allah u naxariisto. aamin aamin walaal. tobannaan ka mid ah waalidiinta carruurtooda ku sugan yihiin xerada alxuul ayaa ii sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda nololeed ee xeradaasi. waxay waalidiintu ii sheegeen in maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ka taliya deegaankaasi ay xadgudubyo isugu jira garaacis, dhac iyo dayacaad kaleba ku hayaan dadka ku jira xerada oo ay ku jiraan gabdhaha Soomaalida ah. waxay ii sheegeen waalidiintu in carruurta ay dhaleen gabdhahaasi ay haysato nafaqadarro iyo daryeel caafimaad la'aantiis. hooyadani waxay magaceeda ku soo koobtay Siciido. gabadheeda oo iyadana magaceeda lagu soo koobo Cayni ayaa u safartay dalka Syria bishii May 2014. waxay ka tagtay dalka Sweden iyada oo ay la socdaan 4 gabdhood oo isugu jira Soomaali iyo Bosnia. markii ugu horeysay waxay tiri hooyo waa nabad qaba, waa nabad tagnay, Syrian tagay, waa hijrooday, saas u la soco. waxay isoo qortay kelmadda waa hijrooday. maxaa dareenkaagu soo noqday markaas? ma ka sheekeen karo, aniga waan qaracmay, waa shaqaysan kari waayey, waan wareeray, calooshii dhanaa ii oloshay. marka contactsna ma jirin oo dee meel aan kala xiriiro oo aan kala soo hadlay iimaysa soo qorin. laakiin markaas hadalka iisoo qoraysa waxay igaga soo qortay Facebook accountkeeda iigu soo qortay, telephone ma jirin. hadda gabadhaada halkay joogta? hadda marka gabadheyda waxay joogtaa soo gashay hadda bishii Maarso 14keedii kaam la yiraaho alxuul oo xuduuda kurdida iyo kurdida Ciraaq iyo kurdida Syria u dhaxaysa. waa gar doolka ay haystaan kurdida Syria iyo kurdida Ciraaq xuduudeeda kaam laga furay oo hore u jiray waagii dagaalkii Ciraaq la sameeyay baa dib loo soo nooleeyo. kaamkaasi hadda ku jirtaan waxaana ay ka timid magaalo la yiraaho Baquus oo weerarkii ugu dambeeyay qolyahan ISIS-ka lagu weeraray ay ku jirtay. meeshaas bay ka soo baxday, ayaga baawro ku soo rarayo xulka keenay. iyada maxay qaban jirtay intii halkaa joogtay? gabdhaha dhan badanaa waxay ku jireen dagaal, magaalada baab dagaal bay kaga soo baxeen, tuulooyinkii u dhaxeeyay soo mareen dagaal bay kaga soo baxeen, Raqa dagaal bay ahayd. marka inta badan dagaal iyo qax iyay ku jireen. marka waxay qaban kareenba waa yareed. ujeedadii iyo markii hore ay rabeen waxay ahayd inay islaam bartaan. waxay u maleynayaan meel nabada in la geeyey. markay ogaadeen nabad inay jirin oo maalin walba bambi iyo carar iyo gurigan ka guri kale u guri, godkan ka baxay, godkan gala ay ugu jireen, ayay qax unbay ku jireen. soo wax weyn ay qaban jireen ma aana ahayn ilmo inay dhalaan iyo marba meel survival ay raadiyaan ma ahe. wax weyn ay qaban jireen ma jirin. laakiin magaaladii ugu dheereeday ay wax badan ku nagaadeenna Raqay ka mid ahayd. waxa ay ka qaban jireen waxay ahayd kindergarten ay sameeyeen oo ay caruuraha gabdhaha kale u hayn jireen, ayada iyo gabdhaheeda saaxiibadeeda. marka hadda aduma waxaad doonaysaa in Sweden la keeno mise in Soomaaliya la geeyo? annaga horta naftooda in la badbaadiyo hadda ku taaganahay. runtii ayagaaba jecel Soomaaliya sababtoo ah waxay isleeyihiin dhibaato inay idinkaga timaadaa ku naqashada Sweden. marka dawladdan jacayl iyo wanaag ay u hayso soo celintooda ma aysan muujinin. marka xoogaa dhibaataa ka taagan arrinkaas. hase ahaatee waa dawladda keliya ogolaatay oo iclaamisay inay rabto inay soo celiso. balse dawladdii waa minority, macnaha xisbiga haysta waa xisbi minority ku haysta meesha. marka hadduu si qayaxan u dhaw waan soo celinayaa in kursiga laga qaado la codeeyo, meesha dhan laga tuuray ka baqaayaan. way ka baqaayaan marka si cadcad inay u dhahaan waa soo celinaynaa. haddaba waddamada caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay qaataan muwaadiniintooda ku jira xeryaha qaxootiga ama kuwa lagu qabtay dagaalka. bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay, mas'uuliyiinta waddanka Kosovo waxay dalka Syria ka soo daadgureeyeen 110 qof oo hore ugu biiray jihaadiyiinta, kuwaas oo isugu jiray 74 carruur ah, 32 haween ah iyo weliba 4 rag ah oo dagaal soo galay. 2 toddobaad ka horna dawladda Faransiisku waxay dalkaasi ku soo celisay 12 carruur ah oo waalidkood lagu dilay dagaaladii jihaadiyiinta Syria, iyo 2 kale oo carruur ah oo iyaguna ay dhaleen jihaadiyiin u dhashay dalka Netherland oo ku dhintay dalka Syria.
galka baaristu waxa uu ogaaday in ehelada gabdhaha Soomaalida ah ee ku jira xerada Al-Xuul ay la xiriireen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayna ka codsadeen in laga soo daadgureeyo xeradaasi lana geeyo Soomaaliya. haddaba dawladda Soomaaliya maxay ka qabtaa arrintan? su'aashaasi waxaan hordhigay safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Cali Saciid Fiqi oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta ay la soo xiriireen ehelada gabdhahaasi. muddo laga joogo 2 bilood ayaa waalidiin ila soo xiriireen oo maaragtay ku nool Yurub kuwaasoo ii sheegay gabdha iyaga ay dhaleen inay ku sugan yihiin oo caruuro haysta ay joogaan maaragtay xerooyin u dhow Erbil magaalada kurdiga Iraq ku taalo. marka waxaan isku daynay inaan mataqaana aan xog aruurino waxaa hadda tirada inkastoo aan maaragtay lahaynin tirada dhabta ah laakiin waxaa lagu qiyaasaa 40 ilaa 50 gabdhood. gabdhaha qaarkood tan ugu yarna 1 cunug ay haysataa inta kalena ilaa 3 caruur ay haystaan. marka gabdhahan waxaa caruurta ka dhalay nimanka meeshii ka dagaalamayo dhalinyarada Soomaaliyeed meeshii tagtay oo ka wada imaadeen adduunyada geeskeeda dhan. marka hadda waxaad moodaa kulligood in laisku soo xareeyay oo ay xeradaas ku wada jiraan maadaama ururkii la jibiyey. wiilasha dhalinyarana ka dagaalamaya xagga ay u badan yihiin qaar dhintay iyo qaar xiran. marka caruurtaas ayaa waalidiintii maaragtay dhalay gabdhaha waalidiintii dhalay ayaa beryahan culeys iyo gabdhaha culeys lagu hayo lah arrintaas bal maaragtay wax laga qabto. waxaan kaloo helnay informationo fara badan oo ku saabsan arrintaas. dad fara badan oo maaragtay wadamo fara badan oo ilaa dhowr wadan ah ayaga naftooda dadkooda way qaateen. marka arrintaa dawladda Soomaaliyeed hadda waanu ku wargelinay waa jawaab baan maaragtay baaritaan baa la sameynaya. markii baaritaanka la sameeyay kadib marka wixii arrintaa laga qaban karo baa laga qabanaya hadii la yiraahdo. adigu shakhsiyan maxaad aaminsan tahay in dawladdu ay aqbasho la keeno wadanka? aniga hadda qof kastoo Soomaali waxaan aaminsanahay maaragtay wadankiisa waa wadankiisa. qof aan ka Soomaalisanahay ma jiro. marka sidaas darteed waxaan qabaa in maaragtay gabdhahan iyo caruurtooda wadanka maaragtay haddaan dambiyo waaweyn jirin oo dad argagixiso ku abuurayo wadanka aysan ahayn wadanka in lagu soo celiyo. marka arrinta argagixisada markaa fiirin dadkani waa dad ka soo tegay guryahoodii iyo dad ka soo tegay sidaas sheegtay jaamacadahoodii Syria tegay. ururka ugu weyn ee ku beereen dadka badankoodu waa Daesh. waa urur argagixisa. dawladda Soomaaliyana laan ka mida Daesh Soomaaliya way joogtaa dhibaatooyin bay ka geystaan. ma kula tahay dawladdu inay ka dhaadhicin karto dadka Soomaalida dhalinyarada wadanka tegay inay dagaalamaan urur argagixisa ah gacan siiyaan way mudan yihiin in wadankii la keeno? horta waxaan isla garano waxaa loo baahan inaan isla garano marka ugu horeysa horta maaragtay ninka oo ku biiray oo caqligiisa maaragtay la rogay oo maaragtay ku biiray argagixisada hadduu kasoo noqdo yiraahdo maaragtay wixii aan ku jiray waan kasoo tagay maaragtay dawladdu way soo dhaweysaa halkaana lagu soo dhaweeyaa. marka categorigaas unbay galayeen iyagana. laakiin waxaan leenahay gabdhaha kan waalidiinta wararkaan ka hayno waxay yihiin kulligood waxay leeyihiin anaga waana la soo qalday halkaanaan joognaa wadankii aanu ka nimidna kuma noqon karno. sidaas darteed wadanka keliya aan leenahay waa meesha waalidkeena uu ka yimid waana Soomaaliya. marka sidaan kuu sheegay go-aanka hadda ma aha maaragtay go-aan shakhsi oo Cali Faqi keliya go-aanka gaarayo laakiin waa go-aan guud u baahan maaragtay arrintan si qarannimo loo fiiriyo. haddii marka baaritaankii uu caddaado dadka kan inay yihiin dad iska maata ah hadda xero qaxooti ku jiro dhibaataysan hadda maaragtay go-aan baa laga gaaraya haddii la yidhaahdo. dawladda Soomaaliya waxaa 2 sano ee u dambeysay u suurta gashay inay dalka ku soo celiso dad Soomaali ah oo ku xirnaa wadamo dibadda ah sida Ethiopia, Hindiya, Liibiya, Seychelles iyo Kenya. haddaba maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya marka ay noqoto xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku sugan xerada Al-Xuul ee dalka Syria? sidoo kale dawladda Soomaaliya ma haysataa tasiilaadkii ay ku soo daadgureyn lahayd dadkaasi isla markaana ay ku dejin lahayd
iyo weliba kartidii ay kula socon lahayd dhaqdhaqaaqa iyo dhaqan celinta dadkaasi.